dagaal qaraar oo u dhexeeya argixisada al-shabaab iyo ciidanka dowladda federaalka kuwa hirshabeelle iyo sidoo kale ciidanka deegaanka ayaa waxa uu ka soconayaa deegaano ka mid a gobolka hiiraan. ururka argagixisada al-shabaab ayaa weerar culus waxa ay kusoo qaadeen maanta gelinkii hore deegaanka ceel koox leh oo 40 kilomitir dhanka bariga ka xiga deegaanka moqokori ee gobolka hiiraan. haddaba waxaa iminka qadka telefoonka si toos ah ugu jira weriye maxamed ibraahim siyaad oo ku sugan meel aan ka fogeen furunta hore ee dagaalka. maxamed, waxaad iga warantaa sida wax u socdaan? maxamed, aad iyo aad u mahadsan tahay. waa sidaad u sheegtay abaara 7:30 daqiiqo aroornimo ee saakay ayaa dagaal culus oo u dhexeeya ciidanka al-shabaab iyo ciidanka dib u xoreynta deegaanka oo garabsanaya ciidanka dowladda Soomaaliya, gaar ahaan guutada shanaad militariga booliska iyo nisaa waxa uu ka qarxay deegaanka ceel kooxle oo dhanka koonfur bari kaga beegan degmada moqokori ee gobolka hiiraan. dagaalka oo ahaa mid aad u culus ayaa la isku adeegsaday hub darinkiisa laga maqlayay deegaano ka fogfog goobta uu dagaalka ka dhacay. deegaanka dagaalka uu ka dhacay waxay fariisin ay u ahayd 5 cisho ee lasoo dhaafay ciidanka dib u xoreynta deegaanka oo ah dadka deegaanka oo is abaabulay ciidanka qalabka sida qaybahooda kala gedisan. waxaana weerarka soo qaaday dagaalamayaasha al-shabaab. dagaalka markii uu qarxayna waxaa durba labada dhinac soo kala gaaray gurmudyo kala duwan, taasi oo mar kale dagaalka sii cuslaysay. waxaana dagaalka goobtan uu ka socdo oo xilligan aan kula hadlayo lagu tilmaami karaa mid kamid dagaaladii ugu qaraaraa ee al-shabaab dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda dhex maray. waa gartay, ilaa hadda khasaare maxaa la ogyahay dagaalkan? maxamed, khasaaraha markii laga yimaado xogaha laga helayo dhinacyada dagaalamaya dadka agdha dhow ma jiro khasaare rasmi ah oo ilaa iminka la shaacin karo. markii laga yimaado nabadoonka guud beesha cali madaxweyne nabadoon cilmi hadar goore oo dagaalka ku geeriyooday islamarkaana furmaha hore ee dagaalka muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa, kana mid ahaa nabadoonadii hogaaminayay dagaalkii lagula wareegay ama howlgalkii lagula wareegay degmada moqokori ee gobolka hiiraan oo maanta deegaan ku dhow dagaalka uu ka socdo. laakiin dhinaca kale markii loo fiiriyo dhanka ciidanka dib u xoreynta ama dhanka ciidanka qalabka sida ama dhinaca kale al-shabaab ma jirto qolo war rasmi ah ilaa iminka soo saartay oo faahfaahin ka bixisay khasaaraha labada dhinac gaaray. laakiin waxaa ila lagu kalsoonaan karo ay ku waramayaan in khasaare xoogan labada dhinac uu soo gaaray oo geeri iyo dhaawac intaba isugu jirta. waa gartay, waxaa la leeyahay al-shabaab weerarkooda aad ayuu u cuslaa oo waxa u muuqday mid ay soo abaabuleen oo tiro badan oo maleeshiyada ayaa weerarka soo qaaday. maxaad ka ogtahay intaa? maxamed, dagaalku wuxuu ahaa mid aad u culus. waa sax, muddo ka badan ilaa iyo 6 saac dagaal socday oo dhowr jiho ka yimid, islamarkaana ciidanku dhowr jeer ay ku noqnoqdeen. waxaad ka dareemi kartaa in dagaalkaas uu yahay mid culus. waxaa dagaalkan sidoo kale intii uu socday la maqlayay hubka waaweyn oo al-shabaab adeegsanayeen oo ay ka mid ahaayeen gaadiidka dagaalka ee shilkayaasha qoryaha loo yaqaano iyo sidoo kale qoryaha lidka ee diyaaradaha ah oo laga maqlayay goobta dagaalka uu ka socday. deegaano ka fogfog moqokorina sidoo kale isna laga maqlayay. dagaalku waa mid qaraar, waxaana dhinaca dowladda soo gaaray gurmudyo ka kala yimid beledweyne, buulo, burda, macaas iyo sidoo kale dadka deegaankeena awfleyda oo deegaano intaas u dhexeeya ka yimid. dhanka dagaalamayaasha al-shabaab afka ceel buur ilaa iyo dhanka shabeellaha dhexe ayay waxa uu yimid gurmudyo, taas oo mar kale xaaladda sii xoojisay. xilligan aan kula hadlaya xabad teel ah ayaa maqlaya oo goob dagaalku ka socdo ka dhacaysa, waxaana taasi ay ka dhigan tahay in dagaalka xooggiisa uu u muuqdo mid istaagay. waa gartay, laakiin ujeedka argagixisadu waxay doonayaan baa la leeyahay inay gaaraan oo ay qabsadaan moqokori oo bartilmaameedka waa halkaa. ciidanka ayaana difaac kala hortagay. maxaa ka jira? ujeedka sida uu yahay saraakiishu waxayna sheegeen in ujeedka uu ahaa in al-shabaab ay halkan gacanta ay ku dhigaan. moqokori markii laga hadlayo waxay kamid tahay deegaanka ceel koox mid kamid a furmaha dagaalka ama deegaanada ugu muhiimsan magaaladan laga difaaco. marka sida hadda ka hor dhacday oo kale ayay sheegeen saraakiisha ciidanka dowladda ee weerarka ama dagaalka maanta dhacay halka ay inay dagaalka ay doonayeen in ciidanka furmaha ku jiro ee dagaalamayaasha al-shabaab la dagaalamayay
markii ay soo diidiyaan deetana in moqokori ay la wareegaan hase yeeshee shalay sidaan ognahay degmada moqokori waxaa soo gaaray wafdi uu hogaaminaya gudoomiyaha gobolka hiiraan saraakiil odayaal dhaqan iyo mas-uuliyiin kalena ay kamid ahaayeen marka deegaanka dagaalka uu ka dhacay iyo tirada ciidanka al-shabaab dagaalka soo qaaday iyo saacadda dagaalka uu socday ama saacadaha dagaalka uu socdo markii la isku daro waxaa la dhihi karaa maxamed saraakiishuna ay sheegeen in muhiimada dagaalka al-shabaab ay soo qaadeen ay ahayd in moqokori gacanta ay ku dhigaan hase yeeshee saraakiishu waxay sheegeen in ciidanka ay jidiyeen haatanna dagaalku waxa u socdaa qaab laciif ah oo ka awood yar sidii hore uu u socday oo waxaa la maqlayaa qoryo aakayaal ah halka markii hore beekaaniyo iyo sagano iyo qoryaha kale ee liidka diyaaradaha iyo dhishiikiyaasha iyo qoryo noocaas oo kaleenta ah dagaalka la isku wadaasanayo oo la maqlayay xilligan aan kula hadlayo waxaa la xiray goobi ganacsiga oo ku yaalay degmooyinka moqokori iyo maxaas dadka deegaankana dhammaantood waxay sheegeen in dagaalka ay ku biirayaan oo ciidanka dowladda iyo deegaanka ay ka barbar dagaalamayaan waxaan u fahmay in dhammaan shacabkii oo laga soo bilaabo moqokori ilaa deegaanadan dagaalada ay ka socdaan ilaa maxaas hubka ay soo qaateen oo diyaar u yihiin inay la dagaalamaan argagixisada goobihii ganacsiga kuwii waxbarashada iyo sidoo kale dhammaan dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa degmooyinkaas ka jiray waa la hakiyay dadka deegaanka oo iskood isku soo abaabulay kana careysan dagaalkaas al-shabaab ay dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda iskaashanaya kusoo qaadeen garabna u noqonaya ayaa soo buux dhaafiyey degmada moqokori waxaana dabcan la arkaya gaadiidka dadka shacabka ay leeyihiin oo ciidan daabulaya iyo sidoo kale dadka deegaanka oo ciidanka raashinka iyo biyaha ka dabooda taasi oo ka dhigan in dadka deegaanka ay ku qanci waayeen kana dhiidhiyeen xukunkii al-shabaab islamarkaana haatan ay u baahan yihiin isbedel dhanka maamulka ah taana ay keentay in dadka deegaanka ciidanka ah iyo ciidanka dowladaba dadka ay ka barbar dagaalamaan oo ay waxay u baahdaan ay la gaad istaagaan hub iyo gaadiid dagaal ayaa laga qabtaa laleeyahay argagixisada maxaa ka jira sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka ma jirto ilaa iyo hadda wax gaadiid dagaal ah oo laga qabsaday dhanka dagaalamayaasha al-shabaab laakiin gaadiid khasaare uu kasoo gaaray ayay sheegeen saraakiishu in dhankaasi ay jiiteen laakiin ma jirto wax ilmaha iminka gaadiid ah oo laga qabsaday saraakiishu waxay sheegeen in meelo fara badan oo al-shabaab ah oo hay ay jirto islamarkaana miidiyaha ama warbaahinta saacadaha soo aadan ama daqiiqadaha soo aadan ay usoo bandhigi doonaan waa tahay daawadayaal kaana waxa uu ahaa wariye maxamed ibraahim siyaad oo ku sugan furinta hore ee dagaalka meelan ka fogeen ee deegaanka ceel qooxle oo gobolka hiiraan ka tirsan waxaan idin ballan qaadaynaa in wixii kusoo kordha dagaaladan aan idinla socodsiin doono sidoo kalena maadaama daawadayaal halkaas internet aanu ka jirin sidoo kale waxaan idin ballan qaadaynaa muuqaalada laga soo qabto dagaaladan inaan idin soo gudbin doono wixii kusoo kordha insha allah dib ayaan idinkala soo socodsiin doonaa inta aynu mar kale kulmayno nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu